socdaalku waxa uu qurxiyaa nolosha sidoo kale waxa uu naga caawiyaa in aynu wax ka baranno adduunka la kulanno dhaqamo cusub la kulanno dadyo cusub la kulanno cuntooyin kala duwan malaayiin dhalinyaro ah ayaa u kala safray adduunka iyagoo u aadaya waxbarasho shaqooyin ama fasax badankooda waxa ay ku soo qaataan waayo aragnimo iyo waqti aad u fiican laakiin waxaa jira dhalinyaro yar oo aan ka soo laaban dalxiisyada ay aadaan Lindsay waxa ay ka mid ahayd dhalinyarada aan nasiibka u yeelan in ay safarkeeda dibadda aysan ka soo laaban Lindsay Anna Hawker waxay ku kortay Brandon Yorkshire tuulo yar oo u dhow Coventry England waxay la noolayd waalidkeed Bill iyo Julia iyo laba walaalahood ah Lisa and Lucia waxay dhigatay dugsiga sare ee King Henry V3 kadibna waxay baratay biologiga jaamacadda Leeds waxay ka qalajabisay darajada koowaad jaamacad waxaana lagu tilmaamay in ay ahayd ardayad aad u ifasa oo xamaasad leh Lindsay waxay ahayd mid caan ah oo aad loo jecel yahay inkastoo ay lahayd qorshayaal oo ay ku qaadato shahaadada masterka laakiinse waxay go'aansatay in ay qaadato 1 sano oo fasaxa si ay wax uga soo dhigto waddanka Japan luqadda Ingiriiska 2006 Lindsay waxa ay raacday diyaarad si ay u aado Tokyo oo waqtiga ahayd meelaha ugu wanaagsan ee ay macallimiintu u aadaan in ay ka dhigaan luqadda waxay aaday iskuul lagu magacaabo Kayo Fenofada dugsigaas waxa uu ahaa mid looga hadlo luqadda Ingiriiska waxaana uu ahaa waqtiga dugsiyada aadka ugu waaweyn ee ku yaala waddanka Japan waxay yeeshay guri ay ku nool yihiin 2 dumar ah oo macallimiin ah mid waxa ay ka timi Australia tan kalena waxa ay ka timi Canada saddexdiiba waxa ay nolosha ula qabsadeen si wanaagsan Lindsay waxa ay si degdeg ah ula qabsatay deegaanka cusub waxa ay jeclayd shaqadeeda waxayna ayna yeelatay saaxiibo cusub waxayna aad ugu raaxaysanaysay joogitaanka Tokyo Lindsay waxa ay si dhow xiriir ula lahayd qoyskeeda iyadoo kala xiriiraysa email telephone iyo Skype inta badan waxay ku raaxaysan jirtay xiisadaha ay u dhigayso fasalkeeda waxayna ahayd qof aad u wanaagsan mar walba waxay ku faraxsaneed inay khibradeeda la wadaagto asxaabteeda 5 bilood ayaa si degdeg ah u dhaaftay waxayna u muuqatay in Lindsay ay si buuxda ula qabsatay nolosha dhinaca kale ee adduunka kadib maalin maalmaha ka mid ah iyada oo ka soo tagtay tareen oo ka timi shaqadeedii iskuulka ayaa waxa ay wadada ku aragtay ninkaas ayaa waxa uu ka codsaday in uu ka mid yahay ardaydeeda laakiin Lindsay waxa ay ku tiri kamid ardaydeeda kadib ninkaas waxa uu damcay in uu soo raacdeeyo oo uu soo daba socdo Lindsay waxa ay soo oroday waxa ay aragtay in uu ninku daba socdo kadib waxa ay xoog u waday baaskiilkeeda kadib waxa uu sameeyay isaguna aad ayuu uga soo daba orday isaga oo lugaynaya waxa uu ku orday xawaarihiisa ugu sareeya waxyar kadib waxa ay timi gurigeeda oo ay doonaysay in ay soo gasho kadib waxay aragtay ninkii oo naftuuraya oo taagan dabadeeda waxaana uu weydiistay koobi ah Lindsay wali waxa ay ka dareensan tahay dareen xun ninkan mana ay doonayso in ay u ogolaato gudaha gurigeeda laakiin markaas ayay xasuusatay in aysan kaligeed ku noolayn guriga waxayna go'aansatay in ay u ogolaato si uu u galo si qolyaha guriga la degan ay u arkaan wajigiisa markii ay soo galeen guriga ninka waxa uu weydiistay Lindsay in ay siin doonto casharo Ingiriis ah oo gaar ah waxaana uu soo bandhigay in uu noqon doono si wacan ugu dadaali doono waxaan aan ka hadlaynaa waa in ay u dhigto casharo kaligiis oo uuna bixiyo lacag khaasa waqtigaas iskuulka ay dhigto waa uu ogolaa in ay macallimiintu wax u dhigaan dad ay rabaan si khaas ah in ay dadka wax ugu dhigaan sidoo kale Lindsay waxa ay ku xidhay shuruud in ay ugu dhigaso meel aan markaas ahayn meel ay dadku ku kulmayaan waxay ku heshiiyeen inay sabtida ku kulmaan maqaaxi kafe oo xaafad ah si ay u siiso casharka koowaad ka hor inta uusan bixin waxa uu si dhaqso ah u saxeexay magaciisa telefoonkiisa iyo ciwaanka emailkiisa magaciisu waxa uu ahaa Tatsuya Ikuchikastu waxa uu ahaa 28 jir waxa uu weli ku noolaa meel ka baxsan waalidkiis kuwaas oo ahaa xirfadlayaal caafimaad
Tatsuya waxa uu ka qalin jabiyey waxda beeraha jaamacadda Chiba 2005 laakiin weligiis iskuma dayin in uu shaqeeyo. Weligii dambi laguma helin, laakiin waxaa jirtay shaqooyin xatooya oo dhaawac ah oo uu sida muuqata ku xadgudbay qof dumar ah oo wadada maraysa. Arrintu si kastaba ha ahaatee waxay ku dhammaatay meel ka baxsan maxkamadda. 24 Maarso 2007 Lindsay waxay u sheegtay dadkii ay wada degnaayeen in ay maanta leedahay xiisad oo ayna u dhigaso wiilka loo yaqaano Tatsuya. Sidoo kale waxay ku kulmeen maqaaxidaas oo ah meel lagu cabo kafeeda. Sida ay qabatay kaamarada, wax walba waxay u socdaan si wanaagsan. Laakiin wax yar kadib, Tatsuya waxa uu ka codsaday in uu soo ilaawo boorsadii ay ku jirtay lacagta uu siin lahaa, lacagtaas oo ah lacagtii ay wax uga dhigasay. Sidoo kale Lindsay waa ay u baahnayd in ay qaadato lacagtaas. Intaas kadib iyadoo aan raalli ka ahayn waa ay ogolaatay in ay u raacdo gurigiisa. Waxayna ka haysteen taxi. Lindsay waxay ka codsatay darawalka taxiga in uu ku sugo maadaama ay soo laabanayso si ay lacagta u soo qaadato. Darawalkii wuu ogolaaday waxaana uu sii taagnaa meeshii ilaa 7 daqiiqo. Kadib markii uu arkay waa cid soo socota uu iska laabtay. Habeenkaas Lindsay ma aysan iman guriga iyo habeenkii ku xigtayba. Markii ay sii maqnayd 2 habeen waxay u yeedheen booliska, laakiin boolisku markaas umuusan arkin wax saa u khatar badan. sidoo kale qoyska ay ka soo jeedo Lindsay waxay aad uga warwareen waayitaanka ay waayeen gabadhoodii maadaama aysan ka jawaabin emailada iyo qoraalada ay u soo dirayeen dib markii ay Lindsay ay ku guuldareysatay in ay soo xaadirto shaqada 2 maalmood dugsigu waxa uu sheegay in la waayay waxa uu wacay qoyskeeda oo ku nool Ingiriiska boolisku xogtii ay raadinayeen xogtii ugu dambeysay ee laga helo gabadha loo yaqaano Lindia waxa ay wada joogeen wiilka loo yaqaano Tatsuya xogtaas oo laga helay makhaayadii ay wada fadhiyeen sidoo kale boolisku waxa uu raacayay in uu raadiyo wiilkaas laakiin ma jirin waxay ka waayeen dhammaan meelaha lagu heli jiray kadib waxay arkeen boolisku waxay tageen gurigiisa waxa ayna ka heleen meydka Lindsay waxaana lagu sameeyay waxyaabo aad u foolxun waxa lagu xidhay dhaco iyo macawis sidoo kale waxa lagu shubay waxyaabo dilaya in ay urto dibadda u soo baxdo sidoo kale waxa lagu shubay acid dilaysa lafaha waxaana u qorshaysnayd in marka uu meydku halkaas ku dhamaado in uu dibadda u soo tuuro boolisku way xaqiiqsadeen oo dilkan ka dambeeyay Tatsuya sidoo kale waxay heleen xog dheeraad ah oo ah in ay kaamarada guriga soo qabatay isagoo oo dukaan u dhow ka soo iibsanaya dhammaan qalabka acid iyo qalab uu rabay markaas in uu u isticmaalo si uu meedkeeda ugu qariyo warkaas waxa uu niyad weyn ku noqday qoyska Lindsay waxay isku keeni waayeen in ay qisada noocan ah ku dhacday gabadhooda qoyskan ayaa duulimaadkii ugu horeeyay ku tagay magaalada Tokyo halkaas ay booliska Japan ay ka bilaabeen baaritaan ballaaran oo lagu raadinayo ninka dilka geystay ee loo yaqaano Tatsuya waxa lagu daray liiska dadka loogu doonista badan yahay ee dalka Japan waxaana wajigiisa la suray meel kasta oo dalka ka mid ah waxa lagu sawiray boorarka warbaahinta saldhigyada tareenada iyo goobaha kale ee bulshadu iskugu timaado laakiin mar walba waxa uu u ekaa nin ka horeeya 10 talaabo waxa ka socda wadanka waxaana uu wadanka ku dhex noolaa 2 sano isaga oo aan dhinacan uga bixin qoyska Lindsay waxay u safreen dalka Japan marar badan iyaga oo kasoo muuqday telefishinada iyaga oo ku qaybinaya waraaqo saldhigyada tareenada waraaqahaas oo ay ku qoran tahay fadlan sii faafi waxay qaadan doontaa hal hoggaan oo kaliya si loo helo ninkan hadii uu qofna kan daawanayo ama uu ilaalinayo ha isku yeelin uma qalmo ilaalin waxaana uu u baahan yahay in la maxkamadeeyo ka kale Tatsuya waxa uu socday in uu sameeyo waxyaabo fara badan oo uu kaga fogaanayo in la soo qabto waxa uu sameeyay in uu qalimo ka galo bishmihiisa sida oo kale in uu qalin ka galo sankiisa oo uu bedelo muuqiisa halkaas kaliya kuma oo joogsan waxa uu ku socday dalka oo dhan isagoo qabanaya shaqooyin aan caadi ahayn si uu u buuxiyo kharashaadka kale ee wajigiisa macnaha lacagta uu ku bixinayo si uu lacag ugu helo si uu ugu galo qalino kala duwan oo uu ugu ekaado qof kale sidaa darteed iyaga oo ay boolisku qaybinayaan sawiradiisa
tetsuya waxa uu isticmaali jiray aqoonsiyo fake ah kuwaas oo ku wareegayo waddanka oo xitaa aanan la ogaan jirin waxaana uu ka shaqayn jiray shaqooyin fara badan oo ay ka mid tahay dhismayaasha laakiin waxay ahayd mid waali ah inuu ka dhigo wejigiisa mid aan la aqoonsan karin intii uu ku sugnaa mid ka mid ah rugaha isqurxinta tar ayaa arkay raadka burooyinka dhabankiisa bidix waxaana uu ka shakiyey waxaana uu wacay booliska oo u diray sawirada muuqaalka cusub ee tetsuya wakhtigaas oo ay raadinayeen dhammaan wargeysyada Japan November 2009 tetsuya ayaa la xidhay isagoo u socda safar aad u dheer oo u socda jasiirad aad u fog tetsuya waxaa la soo taagay maxkamad waxaana uu qirtay sababta inuu lahaa dhimashada gabadhii loo yaqaanay Letitsu laakiin waxa uu ku antacooday inuu ku tala jiray in uusan dilin laakiin uu rabay inuu joojiyo maadaama ay aad u qaylisay sababtoo kaliftay waxa uu ku sameeyey xadgudub waxaana isku dayey inuu qoyska Lindsay ka raaligeliyo isagoo uu qoray warqadan anigu qof shar badan ayaan ahaa cid aan eed ku leeyahay ma jirto aniga mooyaane anigaa qaadaya mas-uuliyadda weligay ma ilaawi doono iyada iyo wixii aan ku sameeyey waxaan qaadi doonaa dhimashadii xumayd ee aan ku sameeyey aad baan uga xumahay noloshayda oo keliya ma baabi'in laakiin sidoo kale noloshayda waan bedelay qoyska Lindsay ayaa diiday inay aqbalaan warqadan qoyska waxa ay maxkamadda waddanka Japan ka codsadeen in ninkan lagu xukumo dil sida u degjisan xeerarka maxkamadda waddanka Japan qofkii kasta oo qofkii qof dila waxaa lagu xukumaa dildalaad laakiin maadaama ninkan uu ahaa 32 jir aan hore u soo geysan dambiyo waxaa lagu xukumay xabsi daa'im tetsuya intii uu ku sugnaa jeelka waxa uu daabacay buug uu ciwaankiisu yahay ilaa la xidhay waxaana uu ka sheekeeyey 2 sano ee uu xaalkiis ahaa uu ku dhuumanayay waddanka Japan haddaba tani waa qisada gabadhii loo yaqaanay Lindsay waa sidee xukunka lagu xukumay ninka loo yaqaano Tetsuya fikirkaaga ayaad noo sheegaysaa qaybta faalooyinka inta aan muuqaalkan muuqaal xiga ku kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh